بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaal daawadayaal halkani waa qoraxay web tv oo si toos ah idinkaga imaanaya North America gaar ahaan state of Minnesota insha Allah taala sidii aad hordhacba kala socoteen waxaanu barnaamijkan ugu golneenahay insha Allah taala 20kii December dhalin Soomaaliyeed oo laga soo tahriyay dhulka wadanka Sacuudi Carabiya oo ka soo degay dalka magaalada Hargeysa ayaa waxa loo dhiibay dalkaasi loo gudbiyay dalka Ethiopia insha Allah taala waxaanu la xiriiri doonaa dad kala jooga Hargeysa waxaa goobjoog inoo noqon doona sidoo kaleeto insha allahu tacaala cabdinaasir xirsi gaani oo ah wakiilka jaaliyadda ogaadenya ee North America bishaare wacdi oo nolosheeda 10 sano ka mid ah kusoo qaadatay jeel ogaadenya insha allahu tacaala waxaanu la xiriiri doonaa cabdinuur oo dhalintaasi qaar ka mid ah aqoon u leh isla mar ahaantaana ku sugan Sacuudi Carabiya insha allahu tacaala waxaanu ku hormaraynaa haddii ilaahay yiraahdo cabdinuur oo jooga Sacuudiga insha allahu tacaala هلا والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عبد النور aad baan ku salaamayaa waxaan filayaa inaad joogto Sacuudi Carabiya qadka ayaad si toos ugu jirtaa qoraxay web tv marka hore aan kugu soo dhaweynayaa aad iyo aad baan idinka qaaday qoraxay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa web tv qoraxay iyo shaqaalaheeda iyo howlwadeenkeeda aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa marka hore aad baad u mahadsan tahay waxaa nagu maqaalaa in dhalin Soomaaliyeed 20kii bisha laga soo tarxiilay Sacuudi Carabiya isla mar ahaanta ku soo degay magaalada Hargeysa dhalintaas oo markii ugu dambeyn markay airport ugu soo degeen loo gacan galiyay dawladda Ethiopia dhalintaasi maxaad ka taqaanay balse maxaa dabeecadaha Sacuudi Carabiya aad oo noo dul maray marka hore hadii la yiraahdo hab dhaqanka sida jeel kulli waxaa nagu xog ogaalo dhalintaas in markii hore bay jeel ay ku jireen walaalaha horta dabeecadaha Sacuudi Carabiya Soomaali waa Soomaali ma kala marna dadka marka la qabtana dadku waxay isaga badan yihiin dhalinyarada soo gasha walaal waxay isaga badan yihiin Cabdi Nuur adoo mahadsan codka xoogaa kor u yar qaad walaal dadka soo gala Sacuudi Carabiya waa dad iska shacaba waa dad iska shaqeysta dhalinyaraduna ma kala marna Soomaali ma kala marna maxaan ku raahayay markay wada joogaan ama ay Sacuudiga joogaan ama ay wada shaqeynayaan waa dad walaalo Soomaaliyeed marka la qabtana dadku sharci ma haystaan marka la qabta diyaaradda la saaro ee tarxiilka yihiin walaale meeshay doonaan bay ka degaan ikhtiyaarkooda uga degaan markay wadan Soomaaliyeed diyaaraddu caga dhigato labada meelood ay ka degaana inta badan waa Hargeysa iyo maxaan ku raahayay Muqdisho labada meelood bay ka degaan qof marka isaga ikhtiyaarka u leh haduu Hargeysa ka degi iyo haduu Muqdisho ka degi bay isaga ikhtiyaarka u leh labada meelood bay diyaaradda caga dhigataa dareen la'aan qofku wadankiisii markuu yimaado Soomaali waa uu Soomaali Sacuudiga markay wada joogaanna waa dad wada Soomaaliya Cabdi Nuur aad baad u mahadsan tahay hadii aan ka dhex galo dhalintaas inta aad magacyadooda noogu xusi karto hadii Ilaahay ka raali noqdo iyo waxay ay qaban jireen iyo dhalin waxay ahaayeen intaan la xirin kullayba dabcan waxaan dareemaa dhalintan inay marka hore jeel ku jireen kadibna la soo tarxiilay dabcan qofkana asigu uu joojka leeyahay haduu doono Muqdisho ka degi karo ama Hargeysa ka degi karo dhalintan dhalin dareen markaas qabta aanan ahayn oo si toos ah Hargeysa ugu soo degay halkaana masiibadu ay kala kulmay marka insha Allah waxaan doonayaa inaan dhalinta magacyadooda qaar ka mid ah hadii aad hayso iyo wixii shaqadoodu ahaan jirtay insha Allah inaad noo xusto walaalaha dhalinta waxaan magacyadooda hayo sida yarka la yiraahdo Maxamuud Axmed Bucul oo kala waan hayaa sidoo kale yar kale oo isagana Cabdiraxmaan Dheere la oranayay wiilasha horta labada ninba si fiican baan u aqaanay marka leesmana ogo oo dhalinyarada baadiyahaas ka shaqeysata oo dad sharci la maaha waa dad aan sharci lahayn waa dad macnaha askartu ay qabato macnaha waxaan ku aqaanay wiilasha dad shacab ah siyaasadan hadda loo qabtay onalafna aan shaqo ku lahayn onalaf meel ay ku shiraysay meel ay joogtana aan aqoonin iska shacab oo iska shaqeysto iska xamaalanaya ayaan wiilasha ku aqaanay runaantiina dadku waa iska dhalinyaradu waa wada shacab nin siyaasad ku jiri iyo nin shacabayna dadku kala yihiin dhalinyaradu saxarahaas ka shaqeysataa xoolahay raacaan arigay raacaan geelay raacaan beerahay ka shaqeeyaan iyagoo taa ka shaqeysanaya haddana macnaha marka askartu qabatay ee jeelasha la geeyo ee la tarxiilo
hargeysa markay ka degaan ama muqdisho ka degaan dee waa dad dalkoodii yimid oo aan dareen macnaha cabsiyad qabin صح marka taasi waxay kaliftay marka walaalle dadkani dad iska shacabay ahaayeen laakiin haddee iska dhuuni qaatoon baa ku magac doontay صح waan fili karaa laakiin wiilal iska shacabahoo waddankoodii yimid bay ahaayeen oo واقرت dhibaataba dee aan islahayn waa laydiin geysanayaaba ahayn laakiin anu wiilashii inay shacab ahaayeen baan idiin sheegayaa صح marka walaalle dhibaatada marka taagan waxay tahay dadkii in la kala saaraa qurux badan kii shacab ahaa iyo kii siyaasad ku jiray inay dadku kala fahmaan baa fiican oy kala ogaadaan baa fiican aad baad u mahadsan tahay haddii ay dareen qabaan oo nimo siyaasad ku jira yihiin waxaan filayaa hargeysa inayna kaba degin laakiin dareen la-aan inay dadka ummadooda shacabka ay uga dhex degeen bay ahayd واقرت wiilashaas shacab bay ahaayeen laakiin ma odhan karo waxa weeye waa dad wax ku jiray ama dembiilayaal jiraan wiilal shacabay ahaayeen shacabnimaday ahaayeen laguma daynin cadow baa loo gacan geliyay shacabkaastii la gadaya iyagoo waxba ka galabsanba soomaaliya laga dhex ururinayo bayna ka mid yihiin aad baad u mahadsan tahay walaal waan kaaga mahad celinaya waqtigaaga qiimaha badan eedna siisay thank you so much baan ku leeyahay waxaa qadka si toosa ugu jira cabdinaasir xirsi gaani wakiilka north america ee jaaliyadda ogaadenya bishaare wacdi oo 10 sano oo kamid ah nolosheeda kusoo qaadatay jeel ogaadenya insha allahu tacaala cabdinaasir may maqlaysaa si fiican aad baan kugu soo dhaweynayaa marka hore qoraxay web t v aad iyo aad baad umahadsantahay calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qoraxay web t v iyo wariyaashiisa oo dhan iyo maxamed soomaali aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waana dhowna maasha allah bishaaro maama kusoo dhawow qoraxay web t v way tukanaysaa wax yar daqiiqad ka bacdi way inoo imaanaysaa okay aad baad umahadsan tahay mudane insha allahu tacaala intaan barnaamijka usii gudbin waxaan jeclahay in aan haddii ilaahay yara dhanka iyo soomaaliya usii gudubno gaanina uu insha allahu halkaas inoogu sii jiro الو السلام عليكم walaal waxaan kaa codsanayaa in codka kor aad u qaado insha allahu tacaala ma doonayno magacaaga inaan halkaan ka xusno maadaama aad hargeysa ku sugan tahay waxaynu daba taagannahay 20 December wiilashii hargeysa laga gudbiyey sacuudi carabiya markii horena laga soo tarxiilay iyo dareenka meeshaasi ka jira iyo hadalhaynta bulshada isla dhex marayaan reer hargeysa insha allahu tacaala aad baad ugu mahadsan tahay kasoo qaybgalkaaga kusoo dhawow walaalkay waan dhowahay aad ayaadna u mahadsan tahay walaala wiilashan waxaa laga qabtay airportka hargeysa 20 bishii December wiilashan waxaa la sheegay inay 7 wiil yihiin walow aan magacyadoodii la wada xusi karin oo magacyadoodii ay weli barmaqan yihiin oo aan la sheegaynin oo weli la sheegin magacyadoodii dhammaantood laakiin wiilasha waxaa ka mid ahaa wiil la leeyahay Khadar Maxamed Khadar dheer la lahaa wiil Xuseen Nuur Layri hello wala ku soo wala maqlay wala ku soo Maxamuud Bucul wiilasha ayaa ka mid ahaa wiilashii la qabtay haye waxaana laga qabtay hargeysa dhexdeeda waa gartay marka laba war baa walaalow la sheegay weli laakiin lama xaqiijin waxa la leeyahay weli inamada airportka laga soo raacay iyo airportka gudihiisa lagu qabtay walow kana hadalhayntu ay aad u badinayso in airportka gudihiisa inamada laga qabtay aanay dhaafin airportka inamadu walaal waxaan ku weydiinayaa qofka badanaa waxaa la tilmaamaa hadda qofkii sacuudi carabiga ee nagala soo hadlaya oo kaleeto waxaa la tilmaamaa qofka markuu yahay qof lasoo tarxiilaya oo kaleeto inuu asiga choice ka leeyahay ama ka degi kara muqdisho ama ka degi kara hargeysa dhalintaano ayagu ay door bideen inay kasoo degaan magaalada hargeysa isla mar ahaantaana ayna dareen qabin gobolka un ay kasoo jeedeen waxa meesha ka jira dhalintu ama shacabka ay meesha isla dhex marayaan ama xukuumadda ma waxay bartilmaameedsanaysaa dadka deegaan ahaan dhulkaasi kasoo jeeda maxaa arrimahaasi ka hoosgareeya baa leeyahay maadaama dadkaani ay ayagu yacni meesha kasoo degeen oo jooska ayagu ay lahaayeen walaalo horto hargeysa waa dhul Soomaaliyeed waa run qofku jooska isaga le meesha uu ka degayo kulli
dee kowna maaha in la gato dadyow shacaba oo magaaladan Hargeysa inta laga qabqabto ama dalka Somaliland Ethiopia laga iibiyo صح marka imikana xiisada Ethiopia way kacsantay waad ogtahay dhalinta dibadda ka imanaysana aad baa looga warwar qaba inay ciidamadii oo la xoojiyaan marka aad ayaa xuduudaha loo adkeynay inay dad gobolka ka soo jeeda oo ka soo degaya magaalooyinka ama Hargeysa ama Puntland waliba kooda Hargeysa jooga aad ayaa loo ilaalinayaa inay u gudbaanayaan xagga صح هلا walaal marka inta dhibaatada u weyn intaasay ka imanaysaa marka kulli dabcan bartilmaameed way tahay dadku oo dadka la dhiibaa waa dadka shacabka gobolka Ogaadeniya ka soo jeeda bartilmaameedkuna inta badan iyagu ku dhacaa maadaama shakhsi Hargeysa ku sugan aad tahay haddii aad arrinta u kuur gasho kale arrinta waa arrimo soo noqnoqda inta badan ma arrin xukuumadda meeshaas ka jirta shacabku ay la qabaanba ma mid shacabku banaanka ka yihiinba maxaad ku qiyaasi lahayd maadaama Hargeysa aad joogto horta xukuumaddu arrinka iyadu si cad bay ugu kacday shacabkuna wuu ku kala qaybsan yahay صح shacabku bar aaminsan maxaa Ethiopia loogu dhiibay dadkan ayaa ku jira dad islaama oo dad Soomaaliyeed in loo dhiibo Ethiopia ma banaana صح dad aaminsan dadkoodii baa loo dhiibaya kaliya tashanaad waa dadkoodii shacabku labada way kala baxsan yihiin صح aad baad u mahadsantahay walaal waqtiga qaaliga waan kaaga mahad celinayaa waxaan u gudbaynaa insha allahu tacaala mudane cabdinaasir iyo bishaaro wacdi haddii ay soo noqotay mudane cabdinaasir maad maqlaysaa halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ha mudane cabdinaasir maad maqlaysaa أساسي عن وحان رادية فيها بشارة وبديت راجع كشتان من لكن وما إن شاء الله كمان وريت جيد رنتي وإذا سيء مركا يعلن كستا وحير لبا صدق علي ha gabadhu waxaanu ka wareysanayna waxay noo xustay dadkaasi in run ahaantii 20 December la gudbiyay oo halka eelaboorka Hargeysa laga afduubay in shacabku ay arrinka ku kala qaybsan yihiin laakiin xukuumaddu ay go'aan cad ka taagan tahay in baqdin ay jirto maadaama Ethiopia ay qalalaasi hadda baan uu aad ugu jiro xuduudaha waxyaabaha meelaha lagu tilmaamo ay ka jiraan maxaa la yiraahdaa waardiye aad u adag oo xuduudihii la adkeeyay marka mudane mas'uul baa tahay maxay arrinkaasi kula quman tahay oo soo noqnoqday in badan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد الصومالية مالك استيقظته والسلام يا السلام عليكم بعد السلام runtii wax cusub ma aha inuu hadda joogsan hayo oo uu u dambayn doonana ma aha ilaa laga gaadho intihadii laga lahaa ama ujeedadii laga lahaa halganka bashaaraan inagu xidhiso akhyaartina waxaan rajeynaynaa codka si fiican u maqashaan insha allahu tacaala barnaamijkan wuxuu quseeyaa oon ku falanqeynaynaa insha allahu 20 December dhalinimo Soomaaliyeed oo laga soo tarxiilay dalka Sacuudi Carabiya isla mar ahaantaana si ayaga choice-kooda ahaa ugu soo degay magaalada Hargeysa meeshii ay soo dhaweyn wax sugayeen lagu salaameeyay in jeelka Ethiopia loo gudbiyay loo yaqaan jeel Ogaadeniya ma maqashaan maxamed ha aad baad u mahadsan tahay maama bishaaro wacdi aad baan kuu salaamayaa waan ku faraxsanahay inaad barnaamijka igala qayb galayso waxaa tahay shakhsi 10 sano oo nolosheeda kamid ah kusoo qaatay jeel Ogaadeniya waxaa tahay shakhsi laga gudbiyay magaalada Hargeysa maanta waxaanu ka hadlaynaa 20 December dhalin Soomaaliyeed oo la soo tarxiilay in loo gudbiyay jeel Ogaadeniya oo dabcan qofkii aan garanayn jeel Ogaadeniya iyo qaabka adigu lagu qabtay iyo haddii aad noo soo koobto insha Allah taala
waan gartay aniga hadda la sugaya inaan hadlo soo maahan aad iyo aad aha aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay runtii hawshan hadda dhacday ee ka dhacday Hargeysa waad maqasheen dhalinyaro u dhalatay wadanka Ogaadeen oo Sacuudiga laga soo tarxiilay inay maaragtay ay Somaliland dadka sheegan haya Ethiopia u gacan geliyeen marka runtii waa dhibaato aad iyo aad naxdin u leh maxaan ku dhahay wax laga xumaadana way tahay hasaatee sida ay ayagu u maleeyeen ay ka dhigayaan ma ay noqonayso waxayna u noqonaynin ka xanuunsadaan eheliyadooda iyo maxaan ku dhahay dhammaan shacabka reer Ogaadeen oo dhan meesha qabashada la qabtay cadawga loo gacan geliyay haddana se shacabka reer Ogaadeen maanta wax ay ka bedelayso haba yaraatee ma ay jirto waa mid maaragtay sii calagelinaysa sii ficil gelinaysa sii fogeynaysa dhalinyarada maanta iyo kuwii hore iyo wixii dambe maaragtay farka laga fuliyo oo dhan mid ay kusii fogaanayaan oo maaragtay sii calagelinaysa weeyaan laakiin dadka waxaa samaynhaya ee ummadda Soomaaliyeed maxaan ku dhahay sheegtay Soomaalinimada ee sidaa ku dhaqmaya iyaga waa mid aakharana u taala adduunkana taariikhda ayaa xusi doonta mid la iloobahayo maaha waa mid u taala marka runtii dadkii hadda ka hor laga dhiibay magaalada Hargeysa ayaan anigu ka mid ahaa dad badan yuunan raalli ka ahayn oo shacabka intiisa badan raalli kama uunan ahayn laakiin xukuumadda Somaliland isku magacaabaysa iyo in badan oo kale oo ku taageersan runtii falal foolxun bay markasta ku dhaqaaqaan annagoo dumara ayayna dhaafi waayeen maxaan ku dhahay intay naqabteen Ethiopia u gacan geliyeen haddana falkan kalaata ay maanta ku dhaqaaqeen iyo wixii hore ay ugu dhaqaaqeenba waa fal foolxun weeyaan ummadda reer Ogaadeenyana maxaan ku dhahay waxay ka bedelaysa ma jirto maxaan ku dhahay waa mid maaragtay annagana sii cadagelinayso oo sii fogeynayso dhan kastaba ha ahaatee wax annaga hadda maaragtay ay dib u dhac iyo maxaan ku dhahay dhibaato ugu keenaysa haba yaraatee ma ay jirto dadka masaakiinta ee Sacuudiga laga soo tarxiilay inay cadawga gacanta u geliyaan laakiin shacabka Somaliland waxaan u sheegayaa inay taariikhda xusi doonto inaan la iloobaynin inay maxaan ku dhahay ay tahay ayaga xaalad xun oo ay sameeyaan oo u taalla oo naan weligana intuu ruux naga nool yahay anaa iloobi karin maama aad baad u mahadsan tahay insha allahu tacaala waynu soo koobaynaa kumana sii dheeraanay haddii ilaahay ka raali noqdo waxaan doonaynaa dadka xasuusiso haddii ilaahay yiraahdo waxa adigu lagugu qabtay waxa aad ahayd maadaama qof isna haddana haween ah shacabna ah in Hargeysa lagaa qabto oo halka jeel Ogaadeen lagu gudbiyo 10 sano cimrigaaga ka midana aad jeel Ogaadeen ku soo qaadato dadka aanan garanayn haddaad u iftiimiso ciqaabaha lagala kulmay iyo waxa uu yahay iyo xuquuqda qofka uu leeyahay jeel Ogaadeen iyo waxa lagu qabtay iyo waxa lagu eedeynay waxa ay ahayd wallahi midda markii aan wax kaaga taabto aniga 2010 bishii labaad bilowgeedii bay ahayd markii Somaliland layga qabtay Ethiopia la ii gacan geliyay maxaan ku dhahay in badan oo ka horeysay iyo xilligaas oo dhowr sano igu qaadatay xabsiga oo xataa markii dambe xabsi ku yaala Arsabal la ii soo gudbiyay baan seel in badan ku soo qaatay haddana runtii qabashada la qabtay dhalinyaradaas waa laga xumaan karaa laakiin waxaan anigu dadka dheerahay oo Soomaalida Soomaalida ma ah waxa la yiri bakaylaha wuxuu dhahaa waxaan ka sii cululayaa qabowga xagaa dambe soo dhacayaan ka sii cululayaa buu yiri marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto qofka waa la qabtay bay ku tahay wuuna xidhan yahay bay ku tahay jeel baa la geeyay bay ku tahay laakiin anigu waxaan ka sii cululayaa oo jirka aan uga xanuunsanayaa dadka halka la geynaya dhibaatada iyo ciqaabta uu la kulmi doono iyo waxyaalaha laguna dhaqmi doono jirdilka iyo ciqaabta iyo godadka lagu ridahayo iyo baraagaha biyaha ee qabow ee lagu ridahayo iyo dhibaatada iyo silaca iyo darxumada uu marahayo ayaan anigu ka xumahay oo midaasu jirkaygu aad uga xanuunsanayo runtii ka sii cululahayaa maxaan ku dhahay qabashadu haddii qofka intii la qabta xabsi la geeyo meel kastoo dhan adduunka dadka waana la qabtaa waana la xidhaa waa wax iska jira laakiin qaabta ay la kulmahayaan iyaga oo maxaan ku dhahay urur shuqul ku lahayn maxaan ku dhahay dad masaakiin oo Sacuudiga iska xamaalinaya tunkooda iska xamaalinayay in kale oo hadda sida anigoo kala iyagu meelahooda iska xamaalinayo meelahooda iska joogay maalin kasta Ethiopia intii loo gacan geliyo lagu iqaabahayo lagu jirdilahayo qaarna u dhiman hayaan ay ku nasbaxayaan qaarna maxaan ku dhahay iyaga oo waxba ku noolaan xabsiyada ay ka soo baxayaan taasaan aad iyo aad runtii uga xumaa aad baad u mahadsan tahay maama aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga insha allahu tacaala waxaan u gudbinayaa cabdinaasir xirsi gaani mudan cabdinaasir kusoo dhawow marka hore
سؤال شو جوه الرئيسين كويديني إذا ماذا نيو بوليس كأفر لا تنكسر وحلا سوق عطا إن الشعب وجيستان الشعب الصوماليين يحسوق وجيستان دعوين كالنوع عن كلا أنا ما إصلاح هذا إن كالين حول كجيستان إن يدتك حسوقان إذا ماذا نيو بوليس ك سيد وحالة تلمام أنت بدن دتك دلني راد أمريكا اللي سوق جد بيو إن إذا دتك عسيد وحي لدونا العقاب وحي لدونا العسكر يستن عيب فوقنا الصومالي اللوجو أبوره سيد دتك الصومالي سجهري مادان أول ما تنتهي taas haddaan horta jawaabteeda ku horeeyo waxa weeye labay u qaybsamaan markii dadka la soo qabto qayb waxa weeye meesha ku dhimataa qaybta kale ee soo hadhay ee nolol ku soo badbaada oo waxa gabadhu ku sheegayso meesha waxa ka jira yani waa cadaab ka jira qaybta soo badbaada ee ana ama naafoodin ama aan meeshii gaajo ku dhimanin ama aan jidil u dhimanin yaa laba qaybood haddana iyaduna u qaybsanta qayb gebi ahaanba diida inay qoriga qaado oo ay soomaalida cadaawad u qaado oo waxaa lagu abuuri in dadkii soomaaliyeed ku soo dhiibeen qori baa lagu siin ka aarsaa laleeyahay isagii baa dib loogu armaaraynhayaa waana qorshahan muxuu ahaayey iyo dhagaraha ay wayaanuhu dheer yihiin xitaa gumaystiyaashii hore ee Hayle Salaasi iyo shuuciyadii iyo wixii adeegeedina wada qaarna dadka inay ilaahba u yihiin sheegay jireen loo sujuudi jiray iyo kuwii hadii la yiraahdo muxuu ahaayey dargiga ahaa ee aan cawaanka ahaa ee shuuciyada ahaa yani intaas oo dhan oo la isku daray iyo wixii system ka soo jiray Ethiopia systemkana ka xun system dabacsan buu korka uga egyahay waraaqo fiican baa u qoran afkii wax fiican bay ka sheegayaan waraaqihina wax fiican baa u qoran laakiin wax ka fulaa ma jiro oon ahayn masabid iyo assassination iyo dhagar iyo isku dir iyo been abuur iyo hadii la yiraahdo divide and rule weeyaan waana aragtaa dalkii Soomaaliyeed isha uu leeyahay waad aragtaa iyo khiyaar la'aanta haysata taasaynu weliba nuude yaa dadkii toos gacantooda ugu jiraan oo torigii ay haysatay ay toos ugu jiraan marka waad garan kartaa dadkaas awoodda ay yeelan karaan iyo hadii la yiraahdo qorshayaasha ay kugu fulin karaan dadka kolka qaar antuu cabsidii ka badato oo dhibaata ku dhacdo qorigii loo soo dhiibay oo liyuga ka mid noqda waa jiraan oo shakhsiyaada laakiin inta badan wixii ama wadaniyad leh ama ururka iyo hadafkiisa leh way diidaan inay dhintaan bay ka doorbidaan ciqaabtaas jeelashayna ku jiraan ama jeelkay ku dhintaan kuwaasi wayna jirtaa cudurkaas in la abuuro waad aragteen xuduudaha dadka lagu laynaya waad aragteen qabaa'ilada iyo gobolka dhexdiisa waxa lagu sameynaya waad aragteen madaxda kuwa Ethiopia u shaqeynayay baaba isdirahayo oo intii la dilo la dhihi maaragtay ama heer hebel baa dilay ama in hebel baa dilay ama bahalki baa dilay ama urur baa dilay aan jirin kolka waxana waa dhagaraha iyo qorshayaasha ay diyaarisay kuwan Hargeysa iyo kan Jigjiga joogana waa isku mid saad ogtihiin ba Soomaali waa la qabsaday waadeeniyada hore ay u haysatay qorshuhuna uu balaaran yahay raggii waxa baaxada leh qarada leh balladka leh hadii la yiraahdo la jeclaha ahaa uu istaagi lahaa waxa ka hortagi lahaana lama hayo oona la fahayn iyo dhalinyaro yaryar oo wadaniin oo tabar lahayn oo maamuladii iyo awoodii iyo hubkii iyo qalabkii iyo ciidankiiba laga haysto dad badan oo hadda Hargeysa jooga wadani ah oo ka xun waxaan waa jiraan oo ama shacaba ama mas'uuliyiinta kamida laakiin waa kuwa aan choice lahayn oo sida kuwa Jigjiga jooga kala oo bahalada qoma ah oo xoolo ah oo hadii la yiraahdo muxuu ahaayay yaa loo dhiibay oo anu ma yiraahdo mas'uuliin ma dhaho horjoogayaal baan dhahaa ama wakiilaan dhahaa waa wakiilada Ethiopia weeye ama horjoogayaasha Ethiopia marka horjoogayaashu way fara badan yihiin horjoogayaasha Djibouti horjoogayaasha muxuu ahaayay Jigjiga horjoogayaasha hadii la yiraahdo ama wakiilada Hargeysa wakiilada ama horjoogayaasha hadii la yiraahdo Garowe wakiilada ama horjoogayaasha muxuu ahaayay Baydhabo wakiilada ama horjoogayaasha Xamar waa sidaa weeye kolka dadkaas waa dad sidaas waxa kaloo ku xusuusinayaa 1996 baa qabashada lagu bilaabay shacabka reer Ogaadeniya iyaga oo wax kaaliyad ah adduunka aan ku lahayn except Djibouti mooyaane yaa Djibouti raaf lagu bilaabay oo haweenkii iyo jaariyadaha ahaa iyo dadkii meelaha muxuu ahaayay dhagax jabsan hayay yaa la soo ururiyay shacabka ah
waa 1996 weyn wax jaaliyad ah oo ay reer ogaadeen iyo kolkaa leeyihiinna haba yaraatay oon Djibouti ahayn ma jiro taasaa horta halganka u joogsan waayey oo jaaliyadii sidaas muxuu ahay dhibaatadaas ay ku dhacday halkii jaaliyada u jirtay maanta oo ay dhowr iyo 20 sano ka soo wareegtay oo ciidan ahaan meesha ONLF maanta maraysa aynu garan karo oo wacyiga iyo garaadka iyo fahamka shacabka reer ogaadeen iyo meeshu gaaray aynu ognahay oo wax dhibaato oo naloo reebtay ayna jirin haba yaraatay mid international iyo mid muxuu ahaay hoosaba oo boqolaal jaaliyadooda caalamku ay si adduunka u taagan yihiin iyo xafiis walba oo boqolaal muxuu ahaay hawlwadeen iyo kumanaan madaxii ay haddii la yiraahdo ay hawshii sida u wado iyo Ethiopia oo maanta intaynu gaarsiinay sagxadda taala oo la isweydiinayo maabka Ethiopia imise dawlad noqon karaa ma civil war buu noqon doonaa boqolaal sano ka dhaca ma 9 dawlad noqon kartaa ma 14 dawlad noqon kartaa maxay ku dambayn doontaa kana sayr ma dhici doonaa intuu la ekaan doonaa wayaani iyo axmaara isugu dhow oo wada ogtiin nimanka hadda dhibaatada sameynaya axmaara deris la ah waliba gobol ka haystaan anfar baa dhinaca kale ka joogta xaggan Eritrea ka joogta Oroma xaggan ka joogta يعني إلا في إلا السودان إلا إريتريا أنت وضع حيث يعني نبني نحنها يا إثيوبيا تذكر سيدا الإسويدين هيو ماشي فروسين كقوة مدحوا دي مال والب حضرا ويجن حضر شريته يا درات سراكيل تجري ساعة خارجيني وقوميات والبيتنا هم كقولة ولا اللي يرد كان عليها فارقوسيو بنايين وعالم كسويدين هيبة شو هاي تذكر سيدي هم بدأوا اللعبة بعدين لها dadka u sii xareynaya dadka shacabka raafka ku yimid hadii la yiraahdo muxuu ahaa kan soo raafayna iimaanka alla ka qaaday carabka ee uurta balaadan iyo kan sii raafaya sii kaxaynaya Soomaaliyeedka ama Soomaaliyeedka yaa Ethiopia muxuu kaga heli waa yani 20 sano ka hor baa Hargeysa dad ururisay oo geysay warigeed meena joojiyeen maxay ka heleen وين الإسويدية وين بحيث يكون بدلين هم جيتوا كتوتين aad baad u mahadsantahay mudane dhamaantiin aad baan idin salaamay salaanta waan idin ka qaado calaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada halkan waa qoraxi web tv oo si toos ah kaga imaanaya North America gaar ahaan state of Minnesota gaani dadku Soomaaliyeed dad wax garad oo dad wax ka fiirsada way leeyihiin dhacdadii ka dhici jirtay jaamaca Dubbad waxa kamid ahaa ay geysteen xasuuqii ay geysteen ciidamadii New Booliska ee hoostiga Ethiopia waxa kamid ahayd wiil yar oo laba jira isla mar ahaantan ciidamada New Booliska waxa la sheegay in hooyadii wiilka toogteen wiilka uqdad intee la ag buu ku koreeyaa nacab intee la ag buu ku koreeyaa wiilka asna laga soo dhiibay Hargeysa ee Ethiopia loo gacan gelinaya xaniyaha laga burburinaya ee la ciqaabaya dabcan dad buu leeyahay walaal buu leeyahay asna nacab intee la ag mustaqbalka Soomaali maxay arrinkaas ku dhalin doontaa aad baan u mahadsantahay maxamed Soomaali good question weeye midka la soo dhiibay ONLF baa dalka gacanta ku haysa iyada cudurkaasi inuu cudur gumaysigu abuuray oo loogu talagalay halgankiisa in lagu joojiyo oo muxuu ahaa intaan cadowga ka jeedsanay aan dib ugu jeedsanay Hargeysa inay ku talagalay oo boqolaal qorshe oo ka horeeyay ay ku fashilantay kana ay ku fashilmi kuwa dambana ay ku fashilmi doonto wayaane kaas annaga u taagan oo ka dhaadhicinayna oo fahamsan oo wadani ah oo Soomaali ah oo Ethiopian ahayn oo Soomaali biyur ah hase yeeshee midka jaamac Dubbad lagu dilay iyo midka lagu dilay muxuu ahaayay laascaanood iyo kii muxuu ahaayay lagu dilay shilaaba agteeda hadii la yiraahdo muxuu ahaayay marxaanka nag lagaga dhigay ogtiina 12 oo subax la gowray oo ergaa weliba laba baar dadka lagu laayay ee boqolaalanka ee aragteen kuwan kale muxuu ahaa buucu kuriya baashi lagu laayay kuwan kale lagu laayay hadii la yiraahdo muxuu ahaa xashi lagu laayay kulli dadkaas dadkii mas'uuliyiinta u ahaa ee waxba ma doortaan dad unba Ethiopia meesha horjoogayaan ku magacooda sida jigjiga ee meesha lagu malmaluuqay ee mas'uuliyiinta ahaa iyaga horjoogay ee ayna iskala hadlayn ee ayna waxba shacabka yaa eeda qaar yeelanay kuwaas weeye kuwa la rabo inay u istaagaan oo ay dadkan fahmaan tacticala afarta wiil ama afartaas heer baadiye ee sanadada la iska siiyay ee shalay muxuu ahaa kuliyadaheena in wax ku bareynay sida wax loo qoro iyo sida wax loo maamulo aynu bareyn iyo sida wax loo toogto
in maanta ay u dawladeeyaan oo maqlaan oo u duloobaan oo isu dhiibaan oo humiliation ku dhaco ay muxuu ahay airportyadoodii iyo dekadahoodii iyo maamuladoodii iyo xeryahoodii ciidanka iyo xafiistii madaxtooyada iyo xafiistii golayaasha wiil yar oo burhaane la yidhaahdo ama bahalkii la yidhahdo ama gabre la yidhaahdo ama shaweel la yidhahdo ama hebel la yidhahdo ama bahalkii la yidhahdo iska maamusho absolutely waxa ceebtaa iskale waa kuwaa weeye ceebtana waxaa weeye runtii waa lagu sii kala badan yahay waxaa number 1 ceebta soomaaliyeed iskale Djibouti oo aan hayn xasan guuleed iyo administrationkii hore ee ah ninkan wakiilka Ethiopia noqday taajus Ethiopia weeye waa taajus Ethiopia dalkii Djibouti hadda in gacanta loo geliyo Ethiopia oo dekad looga dhigo kolka hore in sayrac iyo haddii la yidhahdo muxuu ahaa berberi iyo gacanta loo geliyo ahayd boosaasi way suuroobi leedahay oo annaga ku gudban لأن الله لقي ما هي قربان لنا وحي هذا مرة إن جيبوتي كأنت اللوجري وذلك الصومالية 63 حروبي 83 إنه ما أنت محوها يجيب حسانات دي سيلو قال النقط وشرف دي سيلو قال النقط على دي سيلو قال النقط ووحكو كلفها هي شرب بيتها وحاك لا شون 1960 بهرجيس حروبي وإنجليز كاكا وعد ما أنت نويل الأحمر أورا أيوة في تضحى كله وبلغلي oo aan waxna qorin waxna akhriin iyo hadii la gacanta u gelin hayaan waxdana shacab hor taagan yihiin isla qumayeen iyo dheer oo cirado cidgodir midal isla qumayeen ya bada ku haya absolutely waxay taariikhdu ilaawaysa ma aha dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedna ee lama liqi karo kuwan baana ku ceeboobahaya cudurkaana waan biin doonaa SYL baa imaan doonta oo la isbees garabsan doonaan dalka maqan iyo kan xorta ah ee muxuu ahaa lagu socdo labadaba waan badbaadin doonaa hadii alla idmo waxayna noqon doontaa hadii alla idmo nin walba in maxkamad la saaro ama ka jigaha horjoogaha ka ahaato ama ka Djibouti ka ahaato ama ka Hargeysa ka ama ka Garowe ka nammatran dhulka Soomaali baale shalay muxuu ahaa Ingiriis baa shal qaybiyay waagarta maanta 15 kala loo shaqeynaya نورد يسود حرهي وعلن كذي اللي في يونايتد نيشنز وحاسي وحي سومالي أخبار يسمعها برسيس طيب لما ردونا وامتحان ويا وحن إنه ودمان دونا هدي الله إنه هالكذا قبل واتها لكن تقبل كل أي واحد دونا كنا آخر واحد دونا كنا تاريخ واحد دونا aad baad u mahadsantahay mudane gaani waxaynu ognahay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ilaa dhowr iyo 30 sano inay soo dagaalamayso maanta waxay cadow ku tahay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen waxa ay cadow ku tahay ay hoos hortaagan yihiin waa Ethiopia dalkii Soomaaliyeed ee dadkani la dhashay xaguu ku maqan yahay maxaasad ugu baaqi lahayd maanta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen meel Soomaaliya ka tirsan oo gurmad ugu imaan karo ama rasaas ugu imaan karto ama daawo ugu imaan karto iyadoo aanay jirin aynu aragno maxaa waxaasi koos garay shacabka Soomaaliyeed ee dadkaasi u damqanay maxaad baaq u diri lahayd arintan soo noqnoqotay ee dadka la dhiibay maxaad baaq ugu diri lahayd dhalinta reer ogaadeen marka ugu horeyso horta waan cambaaraynaa dadkan Soomaaliyeed ee horjoogayaasha ah ama wakiilada Ethiopia ah ee ummad Soomaaliyeed oo xor ah ilaa Djibouti ilaa iyo Jubaland inta u dhaxaysa hortaagan ee haddana u fulin haya yani fariin ku shaqeynaya fariin maqale laga soo dhiibay iyo asaabo oo dintay laga soo dhiibay ku shaqeynaya marka ugu horeyso waan cambaaraynaa ugu horeeya Xasan Sheekh iyo Geelle Siiraanyo kullu adwari gaas say u dhayihiin Sharif Sakiin Axmed Madoobe kullu horta waan cambaaraynaa wakiilo weeyaan Ethiopia ama horjoogayaal Ethiopia weey madax Soomaaliyeed inay noqdaan iyo inay meesha baneeyaan baan ugu baaqaynaa fariinta Ethiopia iyo message-ka Ethiopia iyo qorshaha Ethiopia iyo dhagarta Ethiopia ee ay fulinayaan iyo hadafka Ethiopia inay ka baxaan oo dadka Soomaaliyeed ay mas'uulka u yihiin ay hadafkooda iyo diintooda iyo caqiidadooda iyo sharaftooda iyo dhulkooda iyo calankooda ilaaliyaan iyo ammaankooda baan ugu baaqaynaa yeeliba ma hayaan kulli baan ugu baaqaynaa haddayna yeeraynin sidaa inay baneeyaan meesha oo iimaanka alla idinka qaadiyo haddaad lacag raadinayseen ka dheragtid hadduu kursi macaan leeyahayna ka dheragto nuurow 4 sano iyo 8 sano haysi meesha u baneeya dad idin lama dhalan idinke waxna ka keeni weyday madaleysyo waa taa waa kuwa Soomaalida weeye horjoogayaasha ummadda Soomaaliyeed ee wadaniga ee sharafta leh waxaan leenahay dalkan idinka iskale dadkan
la dulaysan hayana waa dadkiini wey ama kala haysta ha ahaado ama kala lagu socdo ha ahaado self defense waxa la yidhaahdo oo naftiina inaad difaacdaan maalkiina difaacdaan dhulkiina difaacdaan sharaftiina difaacdaan caqiidadiina difaactaan afkiina iyo dhaqankiina iyo hidihiina difaacataan baa waajib idinku ah waa fardul cayn wey fardul kifaaya ma aha qof walba meesha aad joogto waajib bay kuu tahay haddaad dibadda joogtana taakulaa waajib kuga ah haddaad gudaha joogtana armiga inaad qaadaa waajib kuga ah dadka la dhiibahayo ee shacabka ah inaad ka banaan baxdaan ka hadashaan miidiyaha tagtaan social mediaha boqolaal madax banaan oo social media jire aad ka hadashaan waa dadkiina wadaniga gaar ahaan dhalinyarada waxaa kuu soo haray ummadda reer Ogaadeniya ummadda reer Ogaadeniya halgan bay u xaydatay oo garwaaxaysatay halganna waa hel weeyaan halgan waa cadaab meel qabow ma laha ama jahannama ha ahaato ama jixiima ha ahaato ama hawiye ha ahaado ama samhariira ha ahaado hel waa hel cadaab waa cadaab wey waxaa weeye jannada adduunku waa xorriyad weeye xorriyadna hel baa ka sokeeya cadaabkaasaa ka sokeeya adoon cadaabkaa jirin oo gaajada iyo dhiibista iyo bahdilka iyo kufsiga iyo dhaca iyo haddii la oonka iyo qaxa iyo rafaadka iyo dhaawaca iyo dhimashada idinkoon marin dhiman maysaan xornimo aad heshaan aad saleelo ku heshaan muxuu ahay gadigii dhoodaan idinkoo waa seexday waa yani maaragtay suuragal maaha waa sacabtima ka soo baxeen wey wayna u diyaar garoobeen marka tiro yar laga reebo caado qaatayaal ah 30 sano iyo ka badan bay soo wadeen boqolaal sano horey soo wadeen halgan intii la bilaabo kacaa kufa oo haddana kufa horey buu in badan inoo soo maray kan ma baktiyahayo ma istaagahayo no matter what wax kasta oo dhaca wuu socon hayaa qorshihiisii baa la diyaariyey jiilkan hadduu dhalin waayo jiilka dambaa dhalin doona haddaan anagu dhalin weyno waalidkana ayna dhaliyaan ahayd hadday dhalin kari waayeen annagu inaan ilmaha annaga qaxa iyo dulliga iyo dhibaatada aan anagu marayno ilmaha annaga inaan oga ba'na weeyo oona marin waana guulaysanaynaa taas haddii alla idmo dhinac walbana waynu ka guulaysanay hadday military tahay Ethiopia waan defeat garaynay hadday tahay muxuu ahaa siyaasadna waan ka raynay hadday tahay muxuu ahaa human rights waynu ka raynay hadday tahay abaabul iyo kaaliyaad iyo adduunka oo dhan oo laga dhaadhiciyo waynu ka raynay wax yar baa inoo dhiman inta in la adkaystaa loo baahan yahay haddii alla idmo taas waa ka reer Ogaadeniya weeye waxaa kaloon ugu baaqi lahaa dadka hililka jooga afartan nin wayaanuhu dhaansado usii dhaansan adeegaha usii ah amarka ay yani ka qaataa inaad dad baa tihiin naf bay leeyihiin wayaanuhu inaad muxuu ahaaye bini aadan baa tihiin qoriga laydiin dhiibay aad caqli ku dartaan oo haddaydan isaga kula jeedsanaynin oo kartidaa iyo aydan lahayn haddii a layidhaha caloodadayga inaad caqli ku dartaan oo haweenka iyo waayeelka iyo carruurta iyo xoolihiina la idiin dirahayo inaad caqli ku dartaan baa loo baahanya haddaydan awood aad ku badbaadisaan hooyadiin iyo aabihiin iyo xoolihiinii iyo khayraadkiinii iyo caqiidadiinii iyo dhulkiinii intaaba yaa lagu tumanaya xataa caqiidadii baa muxuu in la bedelo la doonaya sida Etoobiyada kore looga bedelay haddaydan difaaci karin ku biira kuwa u istaagay ee halganka u taagan ku biira haddii kale sida kuwa halgankana wax ka tari waayey cadowgana u adkaysan waaye muxuu ahaa dhagartiisii iyo dhibaatadiisa u adkaysan waaye damiirka leh idinka idinka fakada idinka tegay ama Soomaaliya galay ama xuduudaha ka baxay noqda oo qorigan hooyadii iyo aabihii haysataan Ukraine iyo Russia kuma difaacaysaan ama xuduudaas ku laynaysaa jaamac dubado kale masaajid dad ku jira lilay boqol jir baa kamid ah hadii salaad taagan oo tukan haya caruur baa kamid ah Ethiopia haween baa kamid ah what's going on waxa ku dirahaya ما كله هذا مثلا يعني إلا نبى تقول بأنا وترى
سن هواني عرور لاين أخيرا ما مال فوق بيتجاه صوتان معها مقاطعة أدونك سو تاريخ وما بعنا هدانا وح ترك كريم أو ده وح بتبادي كريم وهو يلا بتبادي كريم أو ولا لا سمري بتبادي كريم قولي يا كوتشيد مر نقاب هاسان يانا كوا اللي يوبي هدال الهوارنتا ديرهين هن waxa lagu jiraa kala guur ah qof waliba waxa loo baahan yahay maanta oo Soomaaliyeed inuu u qaansheysto ama isu qaabeeyo ama u tafaxayto sidoo hoobaan u dhaxsan lahaa hasheeni toosan baa dhalaysa meeshii dhibaatada ka imaanaysay wadankii naga maqnaa haysatay kuwa kale laga burburiyay hadda ka degilaadahay meeshii baa burburaysa warindihiina fura indihiina fura oo wax dhageysta oo wax maqla oo wax arka caalamku wuxuu isweydiinayaa Ethiopia say meesha ku dambayn doonto iyo waxay noqon doonto iyo qaabka u ekaan doonto idinkuna hadda dad sii dhiibaysaan waxa kale oo Somaliland dhihi lahaa kolka horeba Soomaali baa diideen ceebtiina Soomaali baa diideen kolka horeba Muqdisho baa diideen Addis rabtaan wayaanaad rabtaan Axmaaraad rabtaan مير قتلت وولدتي وقفك الصومالي تاريخ له شرفت له جيت افريقيا مدن aad uma hadsan bari dhaxdaas waxa jirtay ilmo yar oo calanka Ethiopia ruuxaya oo dabcan umaleyn inuu Hargeysa joogo isla mar ahaanta ilmahaas yar kulay waxaasi wax lagu aqriyay wuxuu u leeyahay walaalahan Ethiopia calanka Ethiopia ayuu ruuxaya calankii Soomaaliyeed uu haya wuxuu leeyahay waa cadowgeena Soomaaliya nacaybka inta la ciyaalkaas yar waxa loogu beerayo maxay tahay waan daawaday runtii waana wax murugale weeyaan ilmaha yar waa wax sarab wax lagu sarab gareeyo la diyaariyay weeye waa sirdoonka Ethiopia dadka adeegsadaan kuwa si adeegsadaan baa waxa fulinaya direct iyo wax ma fuliyaan waxay u fuliyaan indirect waxaad ogtihiin dhowrkii sano u dambeysay inaan adsaba laga marin maalinka qoomiyadaha ay sameysteen hidaar la yiraahdo iyo maalinka hayaa gimbood la yiraahdo Tigrayga xoroobeen darbiga ku xoroobeen meel aan maqale iyo jigjiga ahayn oo Ethiopia xuduudaheeda kamid ah oo laga maraaba jiro ama looga dabaaldego hase yeeshee waxa bedelkeedii meeshii Amaaro looga diiday in laga dabaaldego naazil Oromo diiday Gambeel diiday Sidaama diiday بالشانجل ديدين عنفري ديدي بقولك قراءة أركتين إثيوبيا أن من نوعها ومالن قوميين ومالن سوريين من الذي كريم لو كسنة ودبيسي وحلو قد بالدقة وحاوي وشبوتي وهرجيسة أو يرقي وين هي علمية عقول هي مدح يمنشأ انتو بقى هي معارض هي محافظ كل ما شاء الله قطبين ويبقى إن كان عارك إثيوبيا إسكو صورين إن قطبين إن عن شرادة بريدة أيضا عن دمينين إن بون كذا سحر كلا عبين ويعني وانين انتيوي يودن بقريوي ويودن بيلي هنا السعودة وحي سومالي لان يقول لان بس توحت هذا وهذا شيء هي بين بقى أنت كلامه وكو السعودة ولي رجال الذين أنت وأنا لفنا يبورها هر هي هدايا اللي هذا مفتوحة بابي كوتشفتو rag Soomaaliyeed oo damirlana uu joogo dhalinyaro Soomaaliyeed oo caafimaad qabtaan ay joogto wali Soomaali rajay leedahay laakiin waxa dhibaato ah wiilka yarka ee sheegay iyo odayaashii gagaboobay ee Siiraanyi iyo Geel ugu yar yihiin ay ka mid ka yihiin asagoodirtay nin waliba dantii Soomaaliyeed iyo diintii Islaamka iyo sharaftii Soomaaliyeed iyo calankii Soomaaliyeed intuu tuuray oo ama dilaan noqday sida Geeli ama uu hadee leeyahay wakiil noqday sida Siiraanyi iyo rag la midka iyo adwarigaas oo professor baan ahay kule cadawga Ethiopia waa cadawgayga leh Ethiopia waa cadawga Ilaahay aduu kolka ma Ilaahay baad alla tahay cadawga Ilaahay bay la dirtaa oonale marka kolka oonale la dirto Ethiopia u heeliso waa Ilaahay cadawgiisa baad la diraysaa iimaanki baad la diriraysaa islaamnimadii baad la diriraysaa soomaalinimadii baad la diriraysaa dhulkii Soomaaliyeed baad bixinaysaa kii xorta ahaa baad keenaysaa where you going xagee socotaa dadka soo hortaagan tahay dadku sasayn oga yeerayaan dadka laftigiisa saxan ma shacabka Soomaaliyeed waxa dhawrto waran dhaaf inay dhahan weey yasaabaas nadhaaf iimaanka alla ka qaadi
وحكروا الكتاب سوماليا ومشروع سيدي وزير كأريمها دبادة سوماليا بقولي دد كان ودد هذا أول الشقية ودد بس بوردد دلال كلا وطا ودد كل ولا شواسيس وكان في هذين يمان اللي قاعد هي دد ودينين في دد كجيل اللي على نوعها إن رجال فيها قوية وكهض ليان كل وكيل لوي دل صور بكالش أمين أدس بكهلا وحكهل مع ديال بعدك الصومالية ودني وهو نبع عبرة كل يعني ما رأيت وعدد منظري هي دنيستة طبيعة دنيستة شواسيس ودمكر وكيلها وهو كيلوي كل كده الحرة هو حلو بها الصومالية ودنت الصومالية كيف كده هي دنت الصومالية ودنت راتلة دبنا يستاجر دنت الناس كديدة ها بشار مام كسر وحويان runtii kuwan hadda uu ka hadlayo gaani uu leeyahay waa wakiilo qof sharaf la waa wakiil noqdo oo meel maxaan ku dhahay ummad wakiil u noqda wakiil waxa soo kala ma dhahay waa gobasha Tigrayda weeyaan kuwa hadda maamulada sheeganaya isqaybiyay ummadda Soomaaliyeed gobolka ka kala dhigay waa gobashii Tigrayga weeyaan marka Soomaalida waxay ku maamulaa dameer mana harsada hooyadiina ma hargeliyo marka kuwan kala taayeen ummadda reer Waadeen maalin kasta sida xoolihii intay isku xirxiraan diibahaya haddii ay cid wax u tarahayaan oo cid wax u qabanayaan shacabkoodiba maalin kasta lagu hooslaayaa oo lagu xasuuqaa oo lagu qabtaa jeel ogaadeen hadda markii aanu ku jiray shacabka reer Soomaaliland sida ay ugu xirxiran yihiin ma aadan mareyn kareynin maalin kasta halkaas oo kale maxaan ku dhahay laga kaxaynayo laga waxaynayo marka ayagu shacabkii ay matalahayeen ee ay leeyihiin wayna doorteen yaa maalin kasta lana qaban hayaa hortooda lagu laynhayaa caruurtii iyo haweenkii iyo odayaashii iyo wax kaste lagu baabi'in hayaa hadday cid wax u qaban hayaan kuwaasay wax u qaban lahaayeen shacabka Soomaaliyeed na guud ahaan waxaan u sheegayaa qof kasta oo wax geystay oo maanta shacabka reer Waadeen iyo xabadoodu waxay ku jeedaa Tigray iyo cadawgaasay ku jeedaa anagu qabiil kale oo Soomaaliyeed cadow ma aanu ahayn colna nagama dhaxaynin maxaan ku dhahay kuwa dhabarka naga tooganaya ee xabada dhabarka naga dhufanaya iyo kana qabanaya u dhiibahaya sidaan hadda ka horba iri waa wallahi billahi inay maxaan ku dhahay taariikhda Ogaadeen iyo waxay mid la iloobi karayana weligeedii alla hadmaa Ogaadeena haddaan dhaho waa sida turaabta waa igu dambi laakiin waa ummad aan saa ku dhamaanaynin kuna aftarmaynin iyaga ilaahay agtiisana naar baa u taala dadkaas masaakiinta ah ee maanta aan urur shuquuqayn xataa qofku hadduu urur yahay oo la qabto xuquuq maxbuusin uu leeyahay marka waxa weeyaan gumaysiga Itoobiya iyo kooxda kilalka joogta ma yaqaanaan xuquuq maxbuusnimo ma yaqaanaan qofka ay arkaan waxay u qaabayaan si bini'aadnimada ka baxsan inna way ku dhimanaysaa inna nolol xun bay ku sii jirtaa weli marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxaad noo qabanaysaan iyo waxaad noo taraysaan iyo garab istaag idinkama sugayno mana la imaan doontaan laakiin naga daysta dhabarka aad naga tooganaysaan iyo dadka nagaad maalin kasta qabanaysaan haddaad dayn waadaanna waa mid aakharana idinta alla adduunkana idinta alla weeyaan marka hadalku wuxuu ku soo urursan yahay waxaan kalaata maamul goboleedyada iyo waxaan kadaata leleeyahay waa gobashii Tigrayga sidaas ku ogaada ummadda Soomaaliyeed ee damiir kalena waxaan u sheegayaa meel kasta oo joogto Tigray way inugu danaysanaysaa shalay markay dawladda Soomaaliya dhisnayd sidoo hadda sheegayay maxaan ku dhahay gaani oo kale kuwii shalay halka tababarka lagu siinayay ee xafiisyada Muqdisho laga siiyay ee danaysan hayay ee maxaan ku dhahay dhibaatadii haysay laga kaalmeynayay bay ahaayeen maanta markii ay guushi gaareen waxay ku soo faafeen sidii dab hulaaqaya ummadii Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed inay burburiyaan qaybiyaan kala saaraan xasuuq iyo kufsi iyo dhibaatada ay u geystaan haddana inuu dadkii ka diiri waayo waa damiir xumo waa dulinimo waa dayuusnimo waa tisaarnimo waxaas kale marka qof kasta oo Soomaaliya oo inna damiir leh inna Soomaalinimo leh inna islaamnimo leh waxaan ugu baaqayaa gumaysigaas maalin kasta inugu soo duulaya maxaan ku dhahay afka u shisheeye NFD jooga iyo geeska Djibouti inta u dhaxaysa jooga wuxuu u dhaafayaa jirin ha u maraynina shacabka reer Waadeen kaliya inay maaragtay dhibaato ku hayaan waxay ugu dhibaato badan yihiin gumaysiga Itoobiya maanta maxaan ku dhahay Soomaali
inta ay anaga noo geysteen in la eg bay ayagana u geysanhayaan in ay ka diiraan oy damiirnimadii soomaalinimo iyo tii islaamnimaba kor u qaadaan oy baraarugaan oy cadowga meel uga soo jeedsadaan oy ilaahay ka cabsadaan oo iska daayaan dadka masaakiinta ee meelaha laga soo tarxiilahaya ay qabiil ahaan ku dhiibhayaan ay iska daayaan oo ka tanaasudaan maan leenahay kumana yaraanayno taariikhdaana xusi mana iloobayno waana mid u taalla hawaada intuu qof ogaada inuu nool yahayna qof kasta oo dhibaatada geystay wallaahi baan ku dhaartay waa mid u taalla waan ka baxa aad baad umahadsan tahay maama mudane gaani insha allahu tacaala su-aasheeda ugu dambeysaan ku weydiinaya haddii la yara wixii aad ku daraysana waa adiga inkastoo barnaamijkeena uu ku koobnaa dhalinta laga dhiibay hargeysa ee 7 December bishan in hadda sii dhamaanaysa in ku jirno waxaad moodaa barnaamijkeena ka baxbaxna laakiin waa loo baahan mar walba insha allahu tacaala wixii muhiim ah is weydiinayna dalka Eritrea markaan tusaale kugu soo qaato mudane gaani waxaa lagu qiyaasaa ilaa 4 milyan Ethiopia ay ku dhiiran weysa taaka kamid ah dhulkeedaas in Ethiopia qabsato dadka Soomaaliyeed lagu qiyaasa 12 milyan in Ethiopia ay saa u kala gogoyso Ethiopia waxay doonto ka samaysato maxay Ethiopia ku gaartay madaxnimo ummadda Soomaaliyeed baa jirta maxaa arrinkaas ku qiyaas laheedo jira maxaa ummadda Soomaaliyeed ku dhacay sideedaba haddii madaxtooyadii Soomaaliya uu sarkaal Ethiopiana fadhiyo Hargeysa hadduu sarkaal Ethiopiana fadhiyo Boosaaso hadduu sarkaal Ethiopiana fadhiyo dadkii Soomaaliyeed ee u bateen dad gumaysiga Ethiopia u adeegaya maxay tahay daciifnimada ummadda Soomaaliyeed haysata أربعة ما حصلتهاي إريتريا سدح مليون بالوقية شري لكن ده هذا هو كورتي أو صدر سنة ودوبي هذا حرتهاي وأنا الله صعتهاي مدحويه هيدو يساقوا قرشة فقله لأننا نقرشها هين بعد ممكن فيها متر نجم يعني إنه أمري قال يا إسلام بنك وير وين ولا بنا جود جوسده وشدد هاي تذكر إريتريا إن لا حلو ترى بدنا النقطة في tirooyinka faraha badan ee Ethiopia kale ka mid yihiin ay u difaacanayaan mustaqbalka dalkooda u difaacdaan Eritrea waxa kale oo ogtahay Eritrea 13 urur ba ka samaysatay 12 urur Ethiopia samaysay ma Eritrea saxanta mugtaha 12 ka urur iyaga loo sameeyay oo isla iyaga sida hadda ku weeyni aad garanaysaa ilaa iyo league iyo balaayo iyo hoog iyo jini iyo waxaan aragtay hadda iyo liigaas ugu dambeeyay waa urur hadi kamid ah weeyaan waa qorsho kamid ah qorshihii gumaysiga waxa soo dhan way soo jireen waxay ku soo jireen wuxuu noqday wadaniyad iyo calool adayg iyo karti iyo adkaysi baahay waliba dhulkeedu waa dhul kulul oo buur iyo bacaad iyo ban away dhulkan aad aragtay ee webiyada leh ee xabagta leh ee midhaha leh ee xoolaha leh ee beeraha leh wax walba leh hadii ay paradise jannada ama haysta in بعدك هذا ركيت العرب وكلا يكرل كهذا ركيت تجاشك الدقيقة يعني نحن نيجي سنة بسكوسو تري تذكر كلكم بديهين وحدون هيان وحديد كران أو دم عليه يا هن ليه هو سلوي ذاك هذه إثيوبيا أو دم كل هاي حسب يوم سوى يرولك أردن وكلاري يعني 8 مليون بالغو قياسا والله بومبون يا إثيوبيا واحد كلا نوا بومبون وكلا بدي نولين هاي waxa weeye dadka noocaasa way u holan waayeen inay aadaan dekadii iyo dhulkii Ethiopia okay dadka Soomaaliyeed ee la gumaysto iyo kan kale xorta kolkii la isku daro 30 milyan waa ka badan yahay 12 milyan xora iyo 12 milyan la gumaysto 30 milyan in loo yani maaragtay hanqal taago oo qaybna gudaha la gashado qaybna iyadoo la doonayo in xaatana lagu duusiyo taana hadii la yiraahdo xeebaheedii laga maarmilayo 3 milyan waa la aadi laayay 3 milyan waa lagu ordahayaa bal adigu tabne waxa keenay ma aha danimo xula Soomaalidu leedahay ma aha taariikhdeena waa la yaqaanaa halkii hilibka cayrin baray waynu nahay halkii adwageeyay baynu nahay halkii Suudaan soo taabtay baynu xuduudeeda maxaa keenay saraakiin meesha ka qurantay saraakiin تشوسين دولة شيء تدي إثيوبيا يا هرت دولة الصومالية الجنوبية أو تهرب دون تر عدو جنوبي أو قبيل يو هدي عليها تجرب مريجين أو أسود السمايستان بين ماشي أفتك السمايستان عيان إنه مجمع ولدي السمايستان SNM SSDF UNC SBM SDM SNF ولا اسم رب سمستين وحلا وحكي كذي أنا ما تشيله من ولا بواسيري أنا منو كحرية كأوهان رام بكرسي دونه كأوهان رام أو كرسي مو بعيستاي بوسوق
ولا صومالي كوفا دي أنا وكرسي كبدي ما كرسي كان على شيء بري كوفا دي كلي أما هذا حسب شو كوفا دي هل مليون كرسي بي صوماليا لا دولة ولا ملايين كرسي بي لا هل هذا أما هل شركة أما هل كمباني عنك الحكومة وحوي يعني وكرسي وي كان وابد دباسي أدوي كلك dadkaasaa jebiyey kadib waa kaad arkayseen warlords bay isu rogtay haddana al bay isu sii rogtay haddana wetalaanta isu sii rogtay waa isla noocoodii oo noocba nooca kasii horreeyey buu dhaamaa fiilaanya hadda xasan sheekh buu ka fiican yahay xasan sheekh yuu ka fiican yahay ninka isagoo soomaaliya oo dhan xukumo intuu jigjigay taagay qaaq yidhi sida dameerkii qaaq yidhi absolutely haddii ceebin loo dhiman hayaan u dhinta ay kolkaa la talin buuna lahayn cid la talisuuna lahayn waxbuuna garanaynin waxbuuna maamuli karin waxbuuna aqoonin meel u socduuna garanayn meesha uu tagahaya isagaa iskale ka kale jabuuti jooga ee dilaalka ka noqday shirkadda China iyo Ethiopia waa shidaalkiisa shidaalka Ethiopia ku haya xagga Ethiopia shidaal ku leedahay waa hore qodob lahayd haday shidaal leedahay shidaalka Soomaali baa leh ogaadeen Soomaali ka mid ah kolka dadka hankooduba sidaa yahay wey aragtidooda sidaa tahay kuwan hadda joogana kuwa kasii xunxun baa loo soo wadaa haddii aynan ka tabaabushaysanin oo ayna ka tashanin dadka Soomaaliyeed dadkii waadariga ahaa waxgaradka ahaa waxyaqaanka ahaa wax waliba ehel bay leeyihiin ehelka u ahaa wanaaga hadduu oday dhaqaneed yahay iyo hadduu muxuu ahaa saraakiil yahay iyo hadduu aqoon-yahan yahay iyo hadduu maamul yahay meesha way ka baxeen wax qabsadeen waa waxaad aragtay wada liyuuga iyo haddii la yidhahdo muxuu ahaayey warlordska iyo jawaasiista muxuu ahaayey ama carabta u shaqaysa ama reergalbeed u shaqaysa ama baalka u shaqaysa Ethiopia weeyaan waxa meesha qabsaday dana dawlado kale la fulinaya dan Soomaaliyeed iyo diin Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed midna iyo dhaqaale Soomaaliyeed calan Soomaaliyeed midna muxuu ahaayey idahoodu ma arkaan sababtu waa taa weeye waa dadka meesha jooga weeye yani han lahayn oo dadka waxa oo NLF example 1991 iyada oo yani aynu sagxadanahay oo dadku qaxooti yahay ee dabka u shiday oo wixii muxuu ahaay noolayn kartana noolaysay oo qaab maamuladan tay u samaysay oo qalin iyo qoriba calaamadaheedu yahay qalinkii kulan challenge garaysay iyo qorigiina back up ka dhigato balayntii diyaarsatay waqtigaas sida la gaareen wada arkayeen inay afti qaadiyo oo taariikhi ay samaysay markii xoog ay noqotayna waka xoogiiba ku difaacaysa lix wiil baa samaysay lixda qaaradood macalimiin maanta ayuu ka socdaa way samayn karaan 13 wiil oo SYL ah samaysay Soomaaliya xoreysay oo Talyaani iyo Ingiriisna dhaafisay way samayn karaan dad samayn karo oo fara badan baa jooga laakiin waa inay fursad helaan bay rabaan haddii ay waayaan oo la siin waayo oo midba midka ka sii xun haddii la yiraahdo looga sii darayo waa in ayagu ayna sugnayeen inay isu qaasheeyaan wey 40,000 oo ciidan ay joogto oo taanib haye maalin walbana muxuu xafiiska madaxtooyada iyo baarlamaankii iyo wasaaradihii iyo amnigoodii la sugnaayay ma waxaa muxuu iyo possible wax shaqayn karaa hargeysa muxuu ahaayey laga soo qaban hayaa dad shacabahooda Sacuudi laga soo raafay 26 sano xornahay bay ku leeyihiin dawlad gaar ah nahay Soomaali baan ka go'nay bay ku leeyihiin look bal fiir adigu يعني هيركا فيري كلك وحن بدك أهل كأوها وحول بأهل بيلي دينتو أهل بيلي دولة أهل بيلي وأولئك قن ماذا النظام يحرك يومضر نوع هاي قاب كذو أهل بيلي بدك أهل كأوها وراجع يا ماشي أنا ماني وكم قن مرة هنا دوران وحن كل دوران هنا يستعلم ويوقع أنت كقبطان ما سنتي المدن wax su'aal ina weydiin ayaa jirin waan jeclaan lahaa in haddii dadka Soomaaliyeed waliba gaar ahaan kuwa hadiyada hadda ka jeeda inay su'aal la yimaadaan may waraysi baan ku soo koobaynay mudana gaani aad baan kaaga mahadcelinay waqtiga qaaliga ahayd nasiisay waad mahadsan tahay waqtiga qaaliga nasiisay mar labaad insha Allah ta'ala aad baan kaaga mahadcelinay kasoo qaybgalka barnaamijka aad mahadsan thank you dhegeystayaasha daawadaha qadarinta qiimaha naga mudanow halkani waa qorax web TV si toos ah kaga imaanaysa North America gaar ahaan state of Minnesota kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Xirsi Gaani wakiilka North America ee jaaliyada Ogaadenya barnaamijkan wuxuu ku walaal uu meel kale la tagtay wuxuu ku koobnaa oo kaliya 7 wiil oo 20 December bishaan laga soo tarxilay dalka Saudi Arabia oo ka soo degay magaalada Hargeysa ayaa si toos ah waxa lagu gacan galiyay
Ethiopia taasoo la sheegay hadda inay ku xiran yihiin jeel ogaadenya insha Allah ta'ala waxaan leenahay kullee inkastoo magacyadooda inay soo xusnay la xiriirna Hargeysa iyo Sacuudi Carabiya mudane hadda ugu dambeeyay qad ka baxay gaani inta baad arkaysan insha Allah ta'ala khayr baan idinkaga tageynaa aad baan idin wada salaameynaa dhammaantiin inta meesha ku wada jirta salaamu alaykum